waa qisada macalin ama bare maalin walba keen jiray iskuulka uu baraha ka yahay hooyadiisa ama daraasada si joogto ah uu ugu bixiyo. Waxaa kiraadsaday macalinkii waalidiinta dhalay carruurta ama ardayda soo xaadirta iskuulka, iyagoo dhaheen meesha maxanaanada waayeelada mise waa goob waxbarasho, taa oo carruurteena ugu keensanay inay noogu tacliin bartaan. Marka maalin walba alla keeno uu keenaya iskuulka hooyadiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabay, iska soo noqosho wacan. Haddaad ku cusub tahay kanaalka ummadda, ku soo dhawaa oo subscribe dheh, oona gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu soo gelino isla markii. Haddii aad ahayd asxaabta hore inoola joogtay, waad ku mahadsan tahay. Aynu u gudagalno muuqaalkeena maanta waa qisada oo aad u murug badan. Macalinka qisadan ay ku dhacday magaciisa waxaa la yiraahdaa Macalin Bojack. Macalinkan waxa uu dhigaa maadada xisaabta. Waxa uu maalin walba iskuulka uu baraha ka yahay keeni jiray hooyadiisa asiga dhashay oona da' ah, oona isla markaana jiran ama xanuunsan. Alxamdulillaah, inkasta ay xanuunsan tahay way socon karaysaa. Marka uu iskuulka hooyadiisa keeno, cidna kuma haleen jirin inay u fiiriso ama u xanaaneyso inta uu xiisada ku sii jiro, balse asaga ayaa ilaalsan jira ama xanaaneysan jiray hooyadiisa maadaama ay tahay hooyadiisii dhashay. Fasalka ayuu dhex fadhiisin jiray. Daawade, macalinkan hooyadiisa asi keligiis bay dhashay oo carruur kale Ilaahay muusan siinin. Marka waa keli, ama sida Soomaalida u taqaan hooyada marka ay hal cunug dhasho oo ah madi. Ahaantii macalinkan hooyadiis aad buu u jeclaa, una ka taxadiri jiray dhab ahaantii. Arrinkan oo ah macalinka inuu hooyadiisa iskuulka keeno waxaa dhibsaday arday badan, marka laga soo reebo arday faro ku tiris ah mooye oo saas u badnayn, iyagoo dhaheen ardaydii dhibsanaysay keenitaanka hooyadani waa iska caadi inuu macalinka hooyadiisa iskuulka keeno inta uu hooyadiisa guriga ugu soo tagi lahaa ama uu ku cidleen lahaa kaligeed. Marka asxaabay, bashadii iyo dhibsashadii ardayda ay dhibsanayeen hooyadani da'da ah waxay sababtay inay waalidiinta ay u walwalaan waxbarashada carruurtooda, iyagoo isdhaheen kaloo soo xaadiritaanka macalinkan hooyadiisa uu iskuulka keenayo waxay waxbarashada ka mashquulinaysaa carruurteena. Durbadii waalid ayaa cunugiisa iskuulka ka baxsaday, waa ayna ziyaada carruurta iskuulka laga baxsaday ama laga bixinayay sababtani darteed. Kadib maamulihii iskuulka wuxuu u go'aansaday inuu la hadlo macalinkan oona kala hadlo arrintan jirto ama xaaladan jirto. Waa uuna u yimaaday macalinkii xiisadiisa wato oo waxa uu ku yidhi, Macalin Bojack, waa kuu baahanahay marka aad xiisada dhammaysato xafiiska ugu kaalay. Macalinkii iyo hooyadiis si wadajir ah bay xafiiskii wada aadeen. Maamulihii macalinkii hooyadiisa buu bannaanka fadhiisiiyey, kadibna waxa uu ku dhahay, Macalin, arrintan oo ah keenitaanka hooyadaada aad keenaysay iskuulka, waalidiin badan ayaa cabasho ka keenay ama cabasho ka soo gudbiyey. Marka macalinoo, waxaan kuu hayaa qof kuu ilaaliyo hooyadaada maalintii oo dhan. Macalinkii waxa uu dhahay, Maya, waa hooyaday, ma awoodo inaan qof ku aamino, qofna ma awoodo inuu ii ilaaliyo. Yacni waxa uu ka wadaa cid aan ku haleynayo ma jirto. Macalinkii waxa uu u milicsaday dhankii ay hooyadiisa fadhisay, laakiin nasiib daro hooyadiisa ma aysan fadhinin meesha. Yacni hooyadiisa mar hore ayay baxday oo meesha ka kacday. Macalinkii waxa uu maamulihii ku dhahay, maamula daqiiqado ii kaadi. Waxa uuna bilaabay inuu raadiyo hooyadiisa, waxa uuna dhahayay, Ooyo. Ardaydii baa maqleen codkii macalinka, waxa ayna bilaabeen inay raadiyaan macalinka hooyadiisa. Meel walba way ka raadiyeen, laakiin ma aysan helin. Ardayda ka mid ahaa oona hooyadiisa gaariga la saarnaa ayaa wuxuu si kedis ah ku arkay macalinka hooyadiisa. Hooyadiis ayuu ku yidhi, baabuurka hal mar hooyo ii jooji. Wiilkii yaraa waxa uu orday dhankii iyo macalinka hooyadiisa, asagoo ku dhahay, Ayeeyo, halkee ayaad u socotaa? Wiilkii ayaa sidaas ayeeyadii ku helay.
kadib maamulihii iskuulka waxa uu shir degdeg ah iskugu yeeriyey ama uu u kulmiyey waalidiinta dhammaantood. Waxa uuna ku dhahay waalidiintii, maanta waxaan idin wada kulmiyey arrinkii aad ka cabanayseen oo ahaa macalinkan iskuulka uu keenaya mar walba hooyadiisa. Maamulka hadalladii uu dhahay waxaa ka mid ahaa, macalinkan hooyadiis keligiis ayay dhashay, maanta ma jiro walaal kale la dhashay oo daryeelaya hooyadiisa. Dhammaan waalidiintii waxay soo xasuusteen dacwadii ay maalin horeete ama mar hore ay ka gudbiyeen macalinkani, wayna ooyeen, way qiiroodeen ayagoo ka shalleynaya siday ugu dacwoodeen. Maamulkii waxa uu hadalkiisa raaciyey, qof walba oo macalinkani ka cabanayo warqad ha igu soo qoro dhibaatada uu kaga cabanayo macalinkani. Dhammaan warqadihii markii maamulkii loo wada keenay muusan arkin qofka cabanaya macalinkani. Ugu dambeyn macalinkii hooyadii sidaas buu ku helay. Waxayna bilaabeen waalidiintii dhalay carruurta inay sii ixtiraamaan macalinka iyo hooyadiisa markay ogaadeen xaqiiqda dhabta ah. Qisadani intaani ayay noo agtahay daawadayaal. Haddaad soo gaartay dhammaadka muuqaalka oo aadna ka heshay, fadlan like saar, siina sheer garay, commentigaagana hoos noogu reeb. waad mahadsantihiin dhammaantiina daawadayaasheena. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عرب أو عجم، لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصوات.